fadlan haddii aad nagu cusubtahay youtube-keena subscribe saar oo si share garay asxaabtaada la wadaag si dad cusub nagu soo biiraan mahadsanid waa kuwe tobanka weeraryahan ee adduunka ugu fiican nambarka 10aad Roberto Lewandowski weeraryahanka Barcelona ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah Lewandowski gool dhalintiisa joogtada ah ayaa ka mid dhigaysa tobanka weeraryahan ee ugu sarreeya kubadda cagta nambarka 9aad Randal Colomwani weeraryahanka PSG Colomwani ayaa bandhig cajiib ah ka sameeyay kooxda Frankfurt iyo doorkii uu ka qaatay koobka adduunka ee Faransa taasoo keentay inuu galo tobanka weeraryahan ee ugu sarreeya kubadda cagta nambarka 8aad Antonio Griezmann weeraryahanka Athletic Madrid xirfadiisa qurxoon ee Griezmann iyo ku soo laabashiisa qaab ciyaareedkiisa sare ee Athletic Madrid ayaa ka dhigaysa inuu boos ka galo tobanka ugu sarreeya kubadda cagta nambarka 7aad Karim Benzema weeraryahanka Al-Ittihad inkastoo uu hoos uga dhacay liiska sabab la xiriira u dhaqaaqistiisa Al-Ittihad Benzema ayaa rikoor cajiib ah ka dhigay Real Madrid iyo ku guuleysigii Ballon d'Or-ka Serhou Guirassy weeraryahanka Stuttgart Guirassy oo qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay horyaalka Jarmalka loolanka Harry Kane oo kula loolamayo kabta dahabka ah ayaa ka dhigtay inuu boos ka galo tobanka weeraryahan ee ugu sarreeya kubadda cagta nambarka 5aad Lautaro Martinez weeraryahanka Inter Milan Martinez aqligiisa iyo xirfadiisa dhinacyo badan leh iyo awoodda gool dhalineed ayaa ka dhigaysa weeraryahan sare oo kubadda cagta ah waxa uu si heer sare ah uga soo hoos shaqeeyay maareeyayaal kala duwan oo kubadda cagta ah waxaana uu weli yahay ciyaaryahan muhiim u ah kooxda Inter Milan nambarka 4aad Victor Osimhen ciyaaryahanka Napoli ee rikoorka cajiibka ah leh ee Osimhen waa weeraryahan aad u wanaagsan iyo mid halis ku ah oo cabsi ku beera difaacyada ka soo horjeeda taas oo ka dhigtay mid ka mid ah weeraryahanada ugu qaalisan uguna fiican kubadda cagta nambarka 3aad Harry Kane weeraryahanka Bayern Munich oo Ingiriiska ah awoodda Kane ee ah inuu hoos u dhigo isku xidhka ciyaarta oo uu baas sax ah sameeyo ayaa ka dhigaysa weeraryahan laga cabsado waxa uu ku jiraa qaab ciyaareed heer sare ah kooxda Bayern Munich isaga oo si joogto ah u dhalinaya waxaana ka geystay guulaha kooxdiisa nambarka 2aad Kylian Mbappe weeraryahanka Paris Saint-Germain ee xirfadlaha gaarka ah ee Mbappe cagihiisa dheereeya orodka degdega ah leh iyo dhameystirkiisa indhaqabadka leh ayaa ka dhigaya mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican adduunka waxa uuna la qaaday kooxda PSG koobab badan nambarka 1aad Erling Haaland weeraryahanka Manchester City Haaland waxa uu caan ku yahay gool dhalintiisa cajiibka ah waxa uu yahay weeraryahan muhiim u ah kooxda Manchester City isaga oo si cajiib ah u dhaliyay goolal badan si weyn uga qayb qaatay guusha kooxdiisa